qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مركا كسو دوادا مقالة تحنها أها يعني هل كان كسو باهين جرني كنا سابسنا مادة إنجليسكا جريد كسديدات wili waxaan ku jirnaa unitka afraad ama cutubka afraad oo ku saabsan charity muuqaalkan marka wuxuu ku saabsan yahay exercise-ka opposite words eraya iska soo horjeedo ama lidis ku ah kuna qoran page-ka 56 su'aasha waxay tahay marka write the opposite of the following words write qor the opposite lidka of the following words erayada soo socda ereyga ayaa dhinacaas bidixda ku qoran wordkii ayaa bidixda ku qoran midigtan waxaa laga rabaa inaad ku qortid opposite-kiisa ama lidkiisa ereyga koowaad wuxuu yahay usefully waa waxtar leh usefully waxtar leh waxaa ka soo horjeedo useless aan waxtar lahayn midka labaad ee ku xiga wuxuu yahay vice waa dhaqan xumo vice micnaheedu waa dhaqan xumo waxaa ka soo horjeedo virtue dhaqan wanaag marka vice waa dhaqan xumo virtue waa dhaqan wanaag numberka saddexaad ee ku xiga wuxuu yahay inferior waa ka heer hooseeya inferior ka heer hooseeya waxaa ka soo horjeeda superior waxaa laga wadaa ka heer sareeya inferior waa ka heer hooseeya superiorna waa ka heer sareeya numberka afraad ee ku xiga wuxuu yahay break micnaheeda waa jabin waxaa ka soo horjeeda mendi oo ah kabid break waa jabin mendina waa kabid okay ereyga kusii xigo shanaad waa female micnaheeda waa dhadig waxaa opposite-keeda noqonayso male oo lab ah female waa dhadig malena waa lab kan lixaad ee ku xigo waa style waxaa laga wadaa wax qadiimi ah oo duugoobay tusaale ahaan qudaarta oo kale markay biseelka ay dhaafto ee aad u waqtiyeysato way badalaysaa markaas camala waxaa la dhahaa style waxaa lid ku ah marka uu kasoo horjeedo oo opposite u noqonayo fresh wax cusub waa style wax hore oo qadiimi ah waxaa kasoo horjeeda fresh wax cusub qudaarta oo kale marka hadda beerta laga keeno waa fresh sidoo kale ereyga toddobaad waa exit micnaheeda waa bixitaan waxaa ka soo horjeedo oo opposite u noqonayo entrance oo ah galitaan exit waa bixitaan entrance oo lidkeeda ahna waa galitaan ereyga sideedaad ee ku xigo waa import waa soo dhoofin waxyaabaha wadanka la keenayo ee lagu soo dhoofinayo ama lagu soo dadguraynayo waxaa loo yaqaanaa import waa soo dhoofin waxaa ka soo horjeedo export micnaheeda waa sii dhoofin waxyaabaha wadanka laga qaadayo ee la geynayo wadamada kale waxaa loo yaqaanaa export waxyaabaha la keenayo waxaa loo yaqaanaa import marka import waa soo dhoofin exportin waa sii dhoofin okay midka ku xigo ee sagaalaad waxaa waaye outer micnaheeda waa banaanka ama dibadda waxaa ka soo horjeedo oo opposite u ah inner
gudaha. Inner waa gudaha, outerna waa dibadda. Okay, numberka tobnaad u dambeeyo wuxuu yahay expand. Expand micnaheeda waa fidin. Expand waa fidin. waxaa ka soo horjeedo oo opposite u noqonayo contract waa isku soo ururid. Contract waa isku soo ururid. Expand waa fidin. Expand waa fidid. Contracting waa isku soo ururid. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waa rajaynaa in wax badan laga kororsaday. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelka waxaa kaa dalbanaynaa in aad nagu soo biirto aad subscribe dhahato. haddii hore ay subscribe kugu ahayd inaad muuqaalka like saarto sharna garayso si asxaab fara badan muuqaalku u gaaro. waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.